إلهي سبحانه وتعالى أيام هالسن ونو صورة قليل إنه نو فلو قالين إن فيق العقلانة كاس أي كود قضي هيدا أما جرمد صومال ريليف أي إن سي دالك أستراليا مقالة ملبون وحان سيجار ومهنقنا هيداسي وحكفى إزداد أدو تربضن وهذا كدن يرتاح قار كميدا وحاي دad aan labada nood wax ka arkeenin qaar kamid waxay dad maarta masaakiin oo guriyahooda isku joogo aan waxba arkeenin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo suurta galiyay inaan maarta guriyahooda loogu tagay adeegan meeshada loogu geeyay isla markaana la keenay maanta isbitaalka General Hospital halkaas oo maarta loogu fiiqay dhamaan dadka u baahnaa qalliinka gaar ugu mahadnaqaynaa walaalaha hay'adda Gurmad Somali Relief INC oo si gaar ah iska xil saaray dadka danyarta ah inay aragooda u soo celiyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ugu rajaynaynaa in miisaankooda xasanaadka ugu daro isla markaana indhuhu waxay kamid yihiin waxyaabaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala si gaar ah oo ugu ballan qaaday janno si darteed waxa halkaan ka dareemeynaa yani maadaama Ilaahay subhanahu u ballan qaaday qof caynkaas ah janno haddana qofkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala awood u siiyay inuu arag qof dib ugu soo celiyo yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa asagana inuu janno u ballan qaado dhamaan inta ka qayb qaadatay walaalaha Gurmad Somali Relief INC si gaar ah ugu mahadnaqaynaa baahidu way ka badan tahay inta hadda aan la qabtay mid aad u ballaaran sidaa darteed insha Allah waxaan rajaynaynaa inay dadaalkooda halka ka sii wadaan walaalahoodna ay wali ay sugayaan waxaan rajaynayaa insha Allah si hadda ka arkayseen dhamaan dadkii adeeg loo sameeyay aad u faraxsanaayeen waana dareemi kartaa marka indhaha isku qabatid hal daqiiqo bacda afartid nolosha say kala tahay shalay taasoo kale ahaayeen waxma arkeenin maantana ayagoo lugahooda ku socday isbitaalka bixin taasna waa maartay mahad gaar ah aan idinkeedii mahadnaqayno waxaan rajaynayaa insha Allah dadaalkiina halka ka sii wadi doontaan bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam magacaygu waa Cabdiqani Maxamed Axmed ilaahay fadligiisa subhanahu wa ta'ala sidii awal baan isku la shaqaynaynay Dr. Kooshin oo ka socda hay'adda Save the Patient badbaadada aragga hadda koorna isla baxnay kaxda isla tagnay ilaahay fadligiisa subhanahu wa ta'ala ilaahay noo suurta galiyay in adka meeshas degana gargaar u qabano oo indho loo fiiqo si baahidii marka Soomaaliya oo dhan wax looga qabto ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo waafajiyay inaan nimaano magaalada Afgooye degmada Afgooye annakii doctorka wada socono Gurmad Somali Relief iyo Save the Patient oo wada jiro si ay u xaliyaan baahiyaha dadka indhaha xanuunaya ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo waafajiyay dad ka badan 30 qof in si lacag la'aan ah adeegii loogu qabto qofkii loo yeero ma arkaysa daawooyin la siiyo laga warqabo markuu baxo ka bacdi gacan loo geysto oo wax uu xataa ku sii qabsado loo raadiyo Ilaahay baa ma iskala subhanahu wa ta'ala arintaasi maanta soo doctorka inoo sheegan waafajiyay oo aan nimid isbitaalka Culuw oo ku yaala degmada Afgooye Ilaahay fadligiisa subhanahu wa ta'ala dadka waa si toogshey way fara badan yihiin waxayna Ilaahay baa u maqan subhanahu wa ta'ala iyo dadkaasi maanta walaalaha muslimiinta Soomaaliya u jiirnaxaya oo la xiriira mar walbaba dadka wax u qaban kara dadka sida Gurmad Somali Relief Ilaahay baa ma iskala subhanahu wa ta'ala baahida way fara badan tahay waxaan rajaynaynaa in doctorka la sii shaqeyno waxa loo fadhiyo waa wax walaalahaas isku keenaan oo Ilaahay dartiis loo baxsado insha Allah ta'ala waxaan ka codsanaynaa walaalaha in gargaarka intaas laga sii badiyo baahida way sii fara badan tahay waxaan ka rajaynaynaa doctorka iyo teamkiisa aad baan ugu mahadcelinayaa isbitaalka aan joogno Culuw aad noo soo dhaweeyay dadkii seexiyay ma arkaysa haddana ka warqabo balana loo qabtay dadkii ay ku soo laabtaan xiriirka uu sii socdo qofka ishiisa ilaa ay aad uga fiicnaato inta hadda joogto isagoo qofkii tijaabo xataa maraya u baxay marka Ilaahay baa mahad iska subhanahu wa ta'ala makaniya arintaasi marka walaalaha waxaan ka codsanaynaa inay ka soo qayb galaan Gurmad Somali Relief dadaalka ay wado dhamaan Soomaaliya dhan ay ka wada laakiin qaybteeda Muqdisho ee Soomaaliya in maaragta gacantaas laga wada geysto insha Allah ta'ala